daaroodoo walaalayaalow jooga war ilaahay ka baqa war annaga maanta waxa waaye cayaaraad wadaan cayaar garoonkan cayaarta ka joojiya war aan isqabanno war aan wax idiin sheego wallahi waa idinka maqanta wallahi dani haddaad qaba weysaan yah eraboorkan ka soo celinaa eraboorka sababta oo aan ninka u nixi waaye bah direed iyo bah dhulbahanta ninka isku wadi waaye ma 4.5 aan noogu keenaysaan annaga oon idinka yeelaynaa runtaa idiin sheegaynaa wuxuu yidhi udiga ninku waa damana jaala war ilma adeerayaalow ninkan oo idinka sidaa ogaa idiin galay oo xabad ka riday oo annaga lehna ilaahayo maanta badbaadi hooyadii qaranka hooyadii Puntland waa hooyadii dimuqraadiga badbaadi aan lahayn inaa annaga maanta noo soo dirtaan ninkii aad Puntland kala quusateen xamar ka tali ma yeeleyno mana dhiciso annagu hadda odayaashiisa baanu nahay maalintuu soo galo udheel ku degaanu TV-ga hor dhiganaynaa waxaanu leenahay waxaa dawdarka ayaa wax loo dhiiban Soomaalidu ninkii ay waxaraa kala quusatay geela u dirsataa xasan sheekh uu ka badheeray Saciid iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe iyo ma haboona adeerow in loo soo qaado madaxweyne iyo waxa lagu xuso galwareed daacadda galwareed adeeraad baa u mahadsantihiin waraysiga ay la yeelateen aniga waxa la yiraahdaa Aqal Maxamuud Axmed Rooble Aqal Xaqudir Saciid Cabdullaahi Deni anigu waxaan ahay nabadoonkiisa in fara badan oo hadda aad u fara badan baan wax u sheegnay inuu nidaamka ku soconayo wax ka bedelo Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu xukumi waayay beel yar oo isu muuqato oo aan dhib lahayn wuu yidhi habartii meel istaagaba ninkii kelmad yidhaahda madfac baan ku dhifanaya waad ogtihiin Boosaaso hooyadii Soomaaliya bay ahayd caalamka markii laga qaxay Muqdisho Hargeysa caalamka oo dhan Kismaayo dekadu markay madoobaayeen Soomaaliya meesha u baxsatay bay ahayd isaga iyo nin kale oo buuran oo leeyahay Cabdiweli baa dekadii xaraashtay oo iibsaday buuqaaf buuqaad waxaanu dalka Soomaaliya baale dekadana iibinaysana Allah u naxariistay jannada Allah ka waraabiyo in siyaad barre baa ka tagay waxba intaad wax ku dari lahayd waxa yeelin dhooba daarood waa horta wuxuu ku sameeyay duhur buu barlamaanka weeraray oo xilka ka qaaday dadkii barlamaanka joogay uu dhexdooda ku weeraray meydkii oo yaal oo aan laga qaadin baa lagu dalcoday Saciid Cabdullaahi Deni nin ummadda loo sheegay maaha nin aqoon loo leeyahay way gobol dhan oo Boosaaso waxa ku waayay farmaajo hadduu yiri waa la dirirayaa farmaajada 270 xildhibaan baa siiri u qaatay waad ogeyd dhiriiriq dadka wixii aan sugi karayn codka waa fasaxan yihiin buu yiri dubsiisa kama degin waxa alla wixii doona lagu hadlaa in bribisil iyo siyaasad u jajaban dalkana inuu xukumo weey Saciid Cabdullaahi Deni waxaan leeyahay ana horta way soo dhaafin hadaan Puntland in badan baanu haynay waa ka soo cawdo bilaysanay waxaanu niri meel dhexe inuu ku dhumo oo tan aynu sax ka heleen waa ognahay waan u soo diray idinka laftiinu nimo dhalinyaro waatiin oo fikir baa leeyihiin oo dadku aqli bay leeyihiin ninka xukumi waayo gobol dhan oo habartii hadashaba yiri baasuukan la dhacaya oo aakhirka u dhameeyay wixii u dhameeyay aad ogeedo in diyaano isagii laga baryaayay shalay ninkuu dekreetada ka qaaday dib ugu magacraabay oo darro daraadeed xildhibaanadii isagoo musharaxa farmaajo hadda xildhibaanada muu dooranaya soo halka fariiso lama oran banaan buu ka yahay yani uu fadhiyaa mana dooranayo soo ma Deni isagaa musharaxa isagaana xildhibaanadii soo xushay Deni waxyaabo uu ugu qalmin inuu madaxweynaha Soomaaliya waxaan ugu qalmin adeer gacaliye haddii nin hadal qaadi waayay Deni horta Puntland 3 sano waayay wuxuu iibiyay dekadii wuxuu iibiyay elaboorkii wuxuu magaaladii geliyay dagaal wuxuu leeyahay xildhibaanadii wuxuu xirxiray nabadoonadii wuxuu yani ummadii oo dhan u leeyimi ana wax ah caalamka ana wax ku shaqeyso marka ninkan nooca maraya Muqdisho iyo ulama socdo inuu madaxweyne ka noqdo campaigner buu qolo u yahay campaignnimadaasina socon mayso Saciid Cabdullaahi Deni marka waxaanu leenahay dadku waxay yiraahdaan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa
soomaalidu ninkii ay waxaraha kala quusatay geela u dirsataa marka annaga siciid halkaasuu naga joogaa xasan sheekh buu kaambineer u yahay ya ra-iisul wasaare silica inuu helo waddanka waa aragtadeer waa 4.5 marka waxaa ka maqan siciid cabdullaahi dene waxaa ka maqan dalku wuxuu marayaa yaa wax qaban karaa dalakan wiilka buurtaa saaran aniga waxna ima taro xisbina iskuma ihin laakiin waxaan ku raacsanahay hannaan iyo han waa aragtay hawadii soomaaliya soo celiyey baddii soomaaliya soo celiyey waddanka ciidan baa loo dhisay niman iskaga birinbirqayn jiray oo ninkay doonaan eri jiray buu yidhi 4 saac waddanka kaga baxa annagaa leh ninna waa nin dal kale annagaa leh ninna waa nin maxamed bin raashi telefoon u soo diraayo leeyahay suu sawayta yaa siciid marka annagu nin caamila siciid iyo ninka la yidhaahdo axmed madoobe iyo ma habboona adeerow in loo soo qaado madaxweyne iyo waxaa lagu xuso dani adeer waaba dagaalsan yahay waa arkaysa xal khudbaddiisa baan dhegaysan wuxuuba leeyahay anigu nin baan isugu tagaynaa nin la dagaalan buu u socdaa ninku madaxnimo iyo han iyo madaxweynenimo ma socdo waa nacayb farmaajo aduguna inaad qof shaksi iska nabcaato waxaa ka wanaagsan inaad u hadasho adugu waxa aad doonayso iyo nidaamka aad raadinayso ninkaan xil uma socdo madaxweynena ma socdo laakiin waa nacayb farmaajo gruub aynu isugu tegaynaa hadal khudbaddiisa waa dhegaysanaysa wuxuu yidhi annagoo gruub fara badana baan rabnaa inaan ninkaa meesha ka saarno meesha ka saaridda waxaa ka horreeya ninkaan waxbuu la yimi wax la imow midada kale dadku cawaan maaha oo waa og yihiin qof walba waxa uu istaahilo siciid adeer cidina wuxuu dhiiban mayso tii uu lahaa buu halleeyey annagu hadda odayaashiisi baanu nahay maalintuu soo galo udheelku degaanu tv-ga hor dhiganaynaa waxaanu leenaha waxaa dawdarka ayaan wax loo dhiiban waddanku waa dimuqraadi maaha puntland oo la sajuubayo qori xabadda laisku ridaayey ninkii wuxuu doonu ku hadlaa marka annagu waxaanu rabnaa nin dalka hore u dhaqaajin kara waxna gaadhsiin kara hanna leh qiimo leh